waxaa la sheegaa in hogaamiyaha Soviyetka Stalin ka hor dagaalkii labaad ee dunida inuu u soo galay askari darajo sare leh isla markaana u sheegay in nin faalalow ah uu ku sugayo bannaanka isla markaana uu doonayo inuu la kulmo sidoo kalena akhbaar hordhaca uu ka siiyo dagaalka ka hor intuusan dhicin. Stalin ayaa si xanaaq leh isla markiiba u eegay askarigii uguna jawaabay orodoo intaa u tagtid soo dil. Askarigiina amarkii ayuu fuliyey, Stalinna amarkiisa lama diido. Askarigii ayaa 2 xabadood madaxa kaga dhuftay faalalowgii isla markiina wuxuu u soo noqday talihiisa asigoo weydiinaya xigmadda ku jirta in la dilo faalalowga intii uu dhageysan lahaa akhbaarta uu ka haya dagaalka. Stalin ayaa ugu jawaabay haddii uu faalalowgan qaybka wax ka og yahay halkan ma uusan imaadeen si aan u dilno. Maca salaama.